waxaan marka hore aniga oo ku hadlaya magaca qorayaasha Soomaaliyeed idinku soo dhaweynayaa bandhiga buugga cusub ee dhawaan soo baxay lagana qoray taariikhdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya ilaahay ha u naxariistee Sareeyo Gaas Maxamed Siyaad Barre buugga waxa qoray nin ka dhalinta yar ee garabkayga midig fadhiya Maxamed Ibrahim oo ah nin ku cusub saaxadda dadka Soomaalida ah ee wax ka qora taariikhda Soomaalida hambalyan kulana Maxamed arintan aw meesha isugu nimid waxa weeye jalasiyaad naxariistii ee bahasiye buug laga qoray oo uu qoray Ibrahim Shire Maxamed Siyaad aan ku hormaro wuxuu ahaa haliyey ayuu ahaa Soomaalidu qaar badanna waagaas waa ogaayeen inuu haliyey yahay intii hadhayna hadday ogaadeen inuu haliyey yahay sida runta ah wuxuu ahaa nin diblomaasi ah nin siyaasi ah nin hormuud ah ayuu ahaa wuxuu ahaa nin aragti siyaasadeed leh ninka madaxweynuhu waa inuu aragti siyaasadeed leeyahay waa theory asagu aaminsan yahay aragti siyaasadeed ayuu lahaa nin siyaasi ah buu ahaa wuxuu ahaa nin saaxiibo badan ku lahaa Afrika anuu Afrika ayaan Zambia yaan safiir ka noqday madaxyaal Afrikaan ayaan la kulmay ayaa ka marakacay Maxamed Siyaad waxyaalihii wanaagsanaa ee uu sameeyay hadda ka hor baan dad xoogaa u sheegay Zambia waxa madaxweyne ka ahaan jiray Kenneth Kaunda sidoo wadanka xorriyada u qaatayba 27 sano ayuu madaxweyne ka ahaa Kenneth Kaunda ayaa wuxuu tagay Soomaaliya caasimadda koowaad markaas haddana wuxuu tagay caasimaddii labaad ee Hargeysa asaga ii sheekeynaya Hargeysa xuduudkeeda markaan soo galnay buu yiri ayaa laba diyaaradood miig ah ayaa naloo soo diray labadii diyaaradood miig ay soo garab gashay buu yiri labada dhinac ilaa aan ka soo dego markaan soo degay buu yiri ayaa diyaaradii waxay sameeyeen munaawaraad wad garanaysa dhalinyarada diyaaradaha wadi jirtay intay wareejiyaan oo korgeeyaan haddana soo deynayeen markaas waxaan ku iri buu yiri dadkii airportka joogay ee ka hor yimid asaga diyaaradahan ma ruush baa wada buu yiri markaas maya ruush ma wado ee Soomaali baa wada ma dhici kartaa buu yiri tawarka laga hadlay soo dagaalayay markii diyaaradihii ay soo dageen ayaa waxa ka soo dagay ayuu yiri laba wiil oo dhuuban oo dheer ayaa ka soo dagay waan dhaqaaqay diyaaradii ayaa qoransaday buu yiri waxaan arkay ayay kaliya inay saarnaayeen ilin baa iga timid biyo markaas waxaan la ooyay ma taqaanaa saanamaya Maxamed Siyaad muddo yar ayuu ciidankiisa heerka ku gaarsiiyay anuu kuma gaarsiin kara buu yiri waa waxtar iyo karti loo qiray weeyaan Oliver Tambo asna ANC xarun bay u ahayd Oliver Tambo wuxuu ka horeeyay Nelson Mandela ka dambeeyay Nelson Mandela waa kii uu xidhnaa soo waqtigaas Oliver Tambo ayaa markuu ogaaday inaan Soomaali ahay ayuu wuxuu madaxweyne fiican baad leedihiin madaxweyne fiican ayaa leedihiin saanahay wuxuu yiri
horta Soomaaliya bad weyn bay leedahay buu yiri xuduudkeedu dheer yahay 3000 wax ka badan ayuu yiri badeenu waa 3300 soo 3000 wax ka badan buu yiri xeebtaas dheer ayaa ciidamadana ayaa tababar ku qaadan jiray buu yiri hadda South Africa saasi u badeereed moogtahay iyada naga bad weyneed markay Namibia ay raacsanayd marka iyagan badda ka dagaalay waa inay yeeshaan halkaas aan tababar ku qaadan jirnay buu yiri waxtar weyn ayuu noo yeeshay buu yiri madaxweyne geesi ah ayuu ahaa buu yiri marka runtii Maxamed Siyaad Barre lagama sheekayn karo waxyaalo badan uu qabtay way jiraan dadnimo fara badanna wuu lahaa wuxuu ahaa madaxweyne qawi ah oo amiin ah ayuu ahaa wuxuu wax ka qoran anigu waa jeclahay asagana waan jeclaa wixii wax ka qoran waa jeclahay wax badan baa Maxamed loo baahan yahay Maxamed Siyaad Barre inta in ka badan in laga qoro buug badan in laga qoro weeyaan wadankaas waxa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn baa ka dhacay waagii Talyaaniga dagaalkii labaad ciidan fara badan iyo hub fara badan baa aagaas tagay waagii daraawiishna dagaal badan baa ka dhacay 77 dagaal ciidan badan lagu garay hub badan baa jiray waxaas oo dhan qisooyin fara badan baa ku jira in wax laga qoro oo aruuraheena wax la ogeysiiyay waa loo baahan yahay maxamed fursadaas aad haysataa inaad wax badan qorto weeyaan taariikhda waxa la dhaho waxa weeye waa wax hore oo dhacay inaad wax ka qorto dadyoga dambe ay akhristaan marka qoraal badan baa loo baahan yahay umalayn maayo Soomaali in lacag badan laga helayo waayo wax akhriska anagu dadka aan jeclayn baan anigu ka mid ahay hada Axmed Sheekhaas buu qoray siiyay waa dhaweyd baan dhameeyay marka waxa weeye Soomaalidu inay wax akhrisa weeyaan wax akhrisku waa horumar wax akhriska caruurteena waxaad akhriso dad baad looga sheekaynaysaa waa horumar waxaad ka sheekaynayso marka waa loo baahan yahay waxaan filahayaa wax akhrisku inuu yahay dhaqan baan u malaynayaa wax akhrisku waa dhaqan caruurta markay yariin lagu soo bilaabo oo la jeclaysiiyo weeyaan in caruurnimada wixii lagu jeclaysiiyo weeyaan laakiin anagu waa weyn baan anagu akhriska bilownay hatta anu kuma wanaagsani marka wax akhrisku waa aqoon weyn weey waa cilmi fara badan weeyaan dalkan aan joogno waa dal cajiib oo ogtihiin waxa la dhahaa dadka Britishka ah ninku meeshuu ka shaqeeyaa ama gabadhu meeshay ka shaqeyso iyo gurigeedu inay kala fog yihiin bay jecel yihiin hal saac iyo laba saac hal saac iyo bari inuu u socdo sababta ma taqaana inta uu soo joornaal baqrinaya buug baqrinaya ya markuu shaqada u socdana hada speaker ay ku akhriyaan aad buu weyn yahay aad buu dheeyahay velocity ay ku akhrinayaan inta uu sii socdo xafiiska u socdo joornaal buu dhameynaya ama buug bay akhrisanaysaa ama uu akhrinaya markuu soo socdana saas oo kale hada bulshadii iyo dhaqankiina waa ku kaalmeynayaan oo dadkan waa lagu tarbiyeeyaaba hatta dadkan Britishka ah waxyaalaha ay aad lacagta uga helaan waxa weeye waa wax ay qoraan weeye qorista hatta dadkooda ninka wax qora hadda intaas kuma filna waxay sameeyaan East Europe iyo Russia iyo buuga laga qoro kayf fiican ayay keenay wala tarjumaya waa dadkiiba akhriska jecel marka waa inaan akhriska jeclaana inuu buugan waan akhriyay
inkastoo aan systemka ka tirsanaa wax badan oonan ogeyn ayaan ka ogaaday marka uu kugu hambaleynayaa bilow fiican ha ahaado arrintiina meeshaas ka waad mahadsantihiin waxaan hambaliyeynayaa maxamed baan hambaliyeynayaa anigu buugga waan akhriyey bandhiggii hore lagu sameeyey magaaladii hore ayuu iga soo gaadhay waan akhriyey akhriskaasaan ku hambaliyeynayaa maxamed isagoo da'daasa ayuu awood u yeeshay buugga intaa la-eg inuu qoro oo nuxurka weyn sida marka maxamed waa hambaliyeynayaa in wax laga qoro 20kii sannadood ee maxamed siyaad uu madaxda ka ahaa Soomaaliya arrin hawl yar ma aha arrin fududna ma aha waa arrin wax badan u baahan waxay u baahan tahay xogogaalnimo waxay u baahan tahay daacadnimo waxay u baahan tahay maaliyad maxamed cabdilla xasan daraawiishta hogaaminayay wax yar baa laga hayaa taariikhdiisii laba nin baa daba qabtay nin waa ninka la yiraahdo aw jaamac Umar Ciise oo qoraalka ka sameeyay gabayadiina qoray taariikhdana qoray wuxuu bilaabay 56 buu bilaabay waxa u dhaxaysa markii sayidku dhintay iyo markuu bilaabay 30 sano u dhaxaysan u maleynaya waxa kale oo isna daba qabtay ninka la yiraahdo aw daahir afqarshe isagiina gabayadii buu ku codeeyay gabayadu codkii bay ku faafeen dad badan baa ku bartay inta ay daba qabteen inta ka luntay ayaa aad uga fara badan hadda 20 sanaynu ka joognaa iyo dheeraad markii xukunkii maxamed siyaad intii ka dambeysay daba qabashay u baahan tahay degdeg bay u baahan tahay ahmiyad weyn in la siiyay u baahan tahay maxamed inaynu ugu ducayno qoraalka oo niraano go ahead kaliya intaas ma anfacayso kaalmo u baahan yahay gacansiin buu u baahan yahay isaga kaliya kuma filla waa in qorayaal badan la helo haddeer marka ugu horeysa SRCdii inta ka nool qof kasta oo SRCdii ka nool waa in haddeer loo tagaa laga qoraa waxa ay hayaan laga shubaa laga kaydiyaa waa in lagu xajiyaa hadda waa inaan midna laga dhaafin SRCda intii ka nool haddeer waa in laga shubaa waxa ay hayaan iyagu waxay wax u qori waayeen waa yaabsanahay runtii waa in lagu xajiyaa dadkii madaxda ahaa wasiiradii madaxdii ciidamada madaxdii booliiska madaxdii kale waa in lagu xajiyaa iyagana la qaabilaa waa haddeer sida boolay sheegayo waa jiilal sii dhammaanaya iyagana haddeer intay joogaan waa in la qaabilo wax laga qoro waxay hayaan waxa marka intaas horta waa in iyaga degdeg loo daba qabto in qoliyaha madaxda ahaan jiray waa in degdeg loo daba qabto waxay hayaan wixii ka dambeeya waa la isugu imanayaa qof iyo aragtidiisa arrintaasi marka waxay u baahan tahay maalgelin xoog leh bay u baahan tahay haddii waxa weeye maxamed SRCda intii ka nool oo dhan waa inuu tagaa isaga iyo qorayaasha kale maalgelin bay u baahan tahay safarkaas hawshaas wasiiradii in la waraysto maalgelin bay u baahan tahay waa in la helaa marka oo la abuuraa institution maaha kani waa shakhsi institution hay'ad waa in la abuuraa hawshan u kacda oo maalgelisa oo xoolaha u ururisa oo taageerto gacan qabata maxamed iyo ragga la mida safarada ka bixisa kharashka ka bixisa waa degdeg waa in loo abuuraa hay'ad u guntata kaydinta iyo taariikhdii jaalle maxamed siyaad barre salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa xafladdu waxay ku saabsaneed
buugga uu qoray maxamed ibraahim maahano maxamed ibraahim oo uu ka qoray taariikhdii waxqabadkii siyaasaddii hoggaamintii ciidanimadii iyo guud ahaan tallaabooyinkii uu qaaday maxamed siyaad barre wakhtigiisii waddan marka uu toosi rabo hoggaankaa u toosa haddaan hoggaanku toosin waddanku ma toosaayo saminkii hore sida la sheegaayo taariikhdu qorayso oo muslin iyo gaal loo diriraayay qoladii hadba hoggaanku u toosan yahay aa guulaysan jirtay haddii hoos loo soo dego aan ka sheekay tagno maxamed siyaad iyo wakhtigiisii iyo shaqadii uu qabtay in laga sheekeeyo waxaa ka wanaagsan in kutubta laga akhristo maxaa jira kutubtu wixii oo runa ay sheegayaan laakiin walaxaan laga aali karinaa jira bulshadu oo weliba hadda dadka maha fadha u badan waxaa la yidhaahdaa sooshitaa oraalaa la yidhaahdaa waa bulsho sheekada ka samaysan ee aan ka samaysnayn akhriska sida badan sida uu sheegayay ninkii iga horreeyey akhriska looma badna waa oral society waay wakhtigana in la beeqaamiyo waa la rabaa walax badanna waa la og yahay cabbaar ka bacdina waxbaa kugu soo dhacaaya horta anigu maxamed siyaad barre awowgiisaan ahay waa ogahay in ay dad badan isweydii doonaan oo la dhihi doono waaba ka yar yahaye sow awowgiis ku naqday haddana waxaan jecelahay in lagu sii murmo oo jidka lagu qaado oo saasoo yiri muxuu u yiri muxuu ula dan lahay waxaas oo buuqa ay sii socdaan taariikhdana ha gasho inaan awowgiis ahay waxaa la yiri markii hore oo dadku dad wanaagsan ahay gobtoodiyaan ahaynuu yiri gob waxaa la yiraa dadka sharafta leh haddeeroo dadku daanyeer naqday dadku markuu qayirmo daanyeerow naqana haddeeroo dadku daanyeer naqdayna muunkiyaan noo yidhi daanyeerta muunkaa u culuse marka wakhtigiisii waa soo qaatay isaga waxaan leenahay allaha u naxariisto soomaaliyana sabar allaha ka siiyaan leenahay la fila maayo hoggaamiye maxamed siyaad barre oo kale ah ma la filanaayo laakiin xoogaa kuwo kala roon oo midba midka kale ama ka daran yahay ama ka roon yahay kii ka horreeyey wayna soo jireen waana jiri doonaan waxaa la yidhi qurmo ma taqaaniin hadda qurmo ma taqaaniin shookada geedaha lagu qoraa la yidhaa birta daab kale oo geedaha lagu qoro ayaa la yidhaa waxaa la yidhi qurmo waxay goyso waa geedka waxay ka goysay hoosteeday yaalliinaa la yidhi macnaha geedka waxay ka goysay hoosteeday yaalliin nin walba wuxuu sameeyo tallaabadii oo qaado hoostiisay aali doonaan taariikhdiisana waa geli doonaan anideeyo maxamed ibraahim shire oo runtii aad iyo aad igaga yaabsaday aniga markii la yiri buug daahfur buug baa la samaynayaa oo laga qoray kacaankii ama maxamed siyaad barre waxaan filayay buug uu soo qoray nin oday ah oo aniga iga sii da'weyn markaan soo galay baan arkay ninkan dhalinyarada ah marka runtii waxa way aad bay waxay ugu noqotay surprise haddana af Soomaali baan sugay buug inuu ku qoran yahay waxa lagu soo qoray af Ingiriis
marka buuggii horta waan gatay laakiin waxaan sugayaa aniga kan af Soomaaliga ah kani waxaan u qaaday carruurtayda inay akhriyaan waa runtii wax aad iyo aad loogu farxo nin dhalinyaro ah aan hadda wali 30 gaarin inuu buug qiimaha leh qoro waa wax aad iyo aad loogu farxo waxyaabaha aanu carruurteena ay maartay wadamadan ka faa'iideysatana waxa weeye waxyaabaha ugu horeeya waxaan filayay oo fiicnayd haddii daahfurkan meel kale lagu qabanayo aan jeclaan lahaa inaan arko in dhowr qof oo buugga soo akhriyay ay faallo ka bixiyaan nasiib darro buugga maanan akhrin wax badanna hadda kama sheegi karo buugga laakiin waan akhrin doonaa haddii alla idmo daahfurkaaga dambaanse wax ka sheega haddii alla ka dhigo buuggana wuxuu ka mid yahay marxaladii wuxuu ka mid yahay maartay ifinayaa marxalad ka mid ah taariikhda Soomaaliya bishii Oktoobar 22keedii 1969 ilaa bishii Janaayo 1991 marxaladii uu kacaanka dalka maamulayay waa taariikh ummadda Soomaaliya taariikheeda ka mid ah taariikhi ka horeeyay baa jira oo ay ka mid yihiin maartay SYL علي بوليبا نقل جوجا تاريخ دي سيد كي دراويشتي بكمدة تاريخي كهريو أحمد قريبا بكمدة وحاسو تاريخي عن لنا يولي تاريخي كسيهري أو إلى حد شبسودي مساردي هري عن دمان تود مارتي الصومالي إلى تشاينا أي صومالي دو عن لا هيد متقان حريره حتى وحكوجرنا تاريخ مذو أو بلابتي جانوري أما بشي كوباد سلاشن كودي مرة سنة كي كويلا تناد مركا كويلا تنسنا أو كعانة كويلا تنسنا بربرة أيانا كجرنا هذا تاريخنا وهذا واحد مدينة دماتها هي ينا وأنو بلابن دونت إن شاء الله تاريخ عصب وأن مارتينا لقري دونه مركا حدان دوني مركينا نهرو السعونة وأن كبحنا ديبكا وإن ندبوا فينا وحى أن هنجرنا قفك وحى وهنجر أنا قون وحمسة ما يسنكروا وإن تاريخ ده ندبوا في سنة محان دسناي محان نور دسناي محان هنجرناي سمعت محان كلها هين أدونك قبلك intaas waa inaan dib u fiirina hadaan ay Soomaali markaad ogaato waxa aad tahay awowga qiimaha uu lahaay aabaha qiimaha uu lahaay awoyasha qiimaha ay la markaad ogaato ayaad ogaanaysaa waxa aad qiimo leedahay maantay waxa nasiib darro ah Soomaaliya oo loo yaqiinay inay tahay baarka Afrika baar waa garanaysaa waa meesha ugu sareysa geela ama kuruskiisa ama meesha ugu sareysa weeye Soomaaliya oo baarka Afrika ahayd ayaa maanta waxaan noqonay sayn meesha aan ka nimid meesha aan joogno waa garanaysaa marka si dib loogu noqdo oo xilligii kacaanka uu jiro oo kale ee Soomaaliya ay ahayd baarka Afrika aanu dib ugu soo noqono waa inaanu wax baranno waa inaanu isku duubni muujino waa inaanu muujinaa Soomaalinimo iyo walaalnimo marka ku dheeraan maayo waxaan mar laba rabaa inaan maartay u tahniyeeyo Maxamed Ibrahim Shire isaga iyo dhalinyarada kale halkan fadhiisana gabdho iyo wiilalba waxaan rajaynaynaa buugaag badan oo xusaysa ka sheekeynaysa taariikhdeen in aad maartay idinkuna qori doontaan odayaasha safka hore fadhiyana wali lama hayo contribution kiini waa maasantiin alxamdulilaahi rabbil aalamiin runtii waa qiiroonaya ma hadli karo waqtigii aan soo maray محمد سياد أنا لسه مري وحن حسي كرم معه وحن حسي كرم معه رجي لسه شقيي دا عد وها ودن كودي ما دحدوده تاريخ دا مغشين أما بديدين جوبجوج واحدين رجي أرنتاس فوليي magacaas ummadda Soomaaliyeed halkaas gaarsiiyay wax lagu qeyrado waay محمد سياد البر الله نحرسته قفكي قفرقي السنة إلهي هو واسعيو
إلهي عافيه هودا بدافو خير أهلكيسا كبدن إلهي هسيو كفي عن الله هسيو دارتو كنا لا متكون أحسن إلهي هسيو وحو دنوب لها أو إدل سيدا دركعت لو قدقه وسخد إلهي هو قدقه حنو قابل قدي كرا كل كان dadkaas odayaalka maanta arraystay cirada goysay iyo kuwa dhintayba la soo halgamay Soomaaliya halkaas gaarsiiyay maxaan u qaban karaa aan u soobin karaa aan u yeeli karaa waxa weyn ma qaban karaa waa ka fiicnaan karaa waa ka wanaagsanaan karaa markii taariikhda raacaan taariikhda qoran oo wanaaga Soomaaliyeed ah oo idil markay dib u noqdaan waa ka fiicnaan karaa waa ka wanaagsanaan karaa maxaa jira waa ka dambeeyaan ninku ka dambeeyo hadduu ka aqoon badan yahay ka fiican yahay akhriyo wixii horay waa ka wanaagsanaan ragii hore oo dhan taasi taariikhda noo cadeynaysa sidii Soomaalidu ay u soo socotay saah baa cadeynaysa inay saas dhiqi karayso waxaan rabay waxyaalo yar yar aan saas u weynayn inaan jaal maxamed siyaad barre Allahu naxariiste inaan ka sheego waxa la haystay nin aan la hadli karin wala la aytabi karin markii wax la isku qabto runta loo sheegi karisaan iyo saan bayna la tahay waa qaadanay ma dhahayna maxaad u tiri saas ma dhihin eraygaas aan leeyahay waxaan idinku leeyahay waay aragnimo aniga aan leeyahay waay intaan isaga aan la kulmay ama aan muranay ama waxa isku fiirinay ay tahay waay oo markaas iga ogolaaday sida aan ku soconay ariga wuxuu jeclaa hal abuurka mar wax hal abuura ninkii ku dhaqaaqa ninkaas uu dad u jeclaa hawshana asaga si toos ula qabanay ula soconahay asagoon wasiir min aan marsiinin soco asaga gacanta qabanay aan ka soo qabta midalan waqooyi waxay leedahay buuro aad u tar badan buurahaasi waxay leeyihiin jeexjeexa baalayaal nin sheekha baa wuxuu ku abuuray liinta macaan mar alla markuu waqooyi yimaado sheekh mar alla markuu waqooyi yimaado ninkaas garabkiisu taagi jiray ninkaan dadka aniga u jeclahay maxaa jira waxbuu soo saaray waxbuu suubiyay waxbuu yeelayaa waa qiraysan waxay la tahay gacantayda ma toosi karayso ma ahan gaalkacyo nin gobernatoor wuxuu ka abuuray moos ninkaasi intuu kor u qaaday ma malin karaysaan meeshaas kaliya aan awal aan la dhihi jiray waxba kama baxaan dadka jooga hadal iyo tir kaliya u badnaa iga raali ahada wixii halkaas ah wax soo saar baa laga soo saaray wax dadka anfaca ay cunaan baa laga soo saaray meeshuu gaarsiilaha baa og ilaa uu ka noqdo wasiirka beeraha oo liintu isaga abuuray oo miraheedu cuno Soomaalida saan u badanahay inaga waxaan naqaanaa wax sheegida samaanta inaan wadno waan ugu yartahay kolka mid aan leeyahay dhalinyarada maanta halkaan joogta iyo kutubta ku akhrinaya wiilkaan uu ka mid yahay waxa weeye waxa la raacay inta san waxa san qaad inta xuna duub waxaan jirin waaye maxaa jira ilaah baa saas loo abuuray kaafir muumin baan leenahay wax caadi waaye ilaah inuu abuuray waaye laakiin Allah subhanahu wa ta'ala mugdigu wuxuu leeyahay ka tag aad jidka toosan kaas raac wixii la soo raacin مثلا أنا حدا وحل واقبة مقدر كان حدا للصومري إلا الدرس واقبة محان أولي هاي سيل لو قدك تونادو
si looga tegtana mustaqbalka dambe maxay tahay qalad kala galay maxaa jira dib looma noqon wax midaysan ma jireen mabda la watay ma jirin dhiigu xalaal buu ahaa waana xaraan waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam mid markii ugu dambeysay wuxuu akhriyay waxa uu yidhi dimaakum wa aradakum waxa ina ka xaraana dhiigiina xoolihiina ina kala dhacdaan naagihiina inaad kala xumaysaan taas bay ahayd diinteena nafreysay Allah subhanahu wa ta'ala taasina ah mabda'a la doonay inaan ku soconaan ku qaadno aniga mid aan leeyahay ragga dhalinyarada ah waxa waaye xasuusnaada taariikhda leegada niman dhalinyaro ah baa waxay gaareen inay tirtiraan waxa la yiraahdo qabiil qaybsanaan ma idinku maanta kuwaas waa ka aqoon badan tihiin maxaa aqoon badan tihiin markii adduunka aragteen adduunka soo socdaad aragteen sidoo ay aragteen midnimadu waxay tahay aragteen aan aado United States of America maxay adduunka maanta ugu talinaysaa midnimada iyo xoogga waay dhaqaalaha waay wixii madaxdoodii hore ay saldhig uga dhigeen tiibay raaceen maalin kasta ay fulinayaan annagu waxay sanaa waqabna laagadi kacaankii barkaysana waxa alla waxay qabteen oo wanaagsanaan intaas waxay noo tahay cilmigeena iyo aqoonteena raacayno ku qabsanayno diinteena haajira diinteena waa kooban tahay hadday niman maqlay dhahay siyaasadda iyo diinta waa isku hal ma jirto kala bixin cilmiga iyo diinta waa isku hal wax kala baxsan ma ahan maxaa jira aan u noqonno aan fiirino kitaabkeena quraanka muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlay ma jiro waxa uusan ka hadlayn ma jiro waxa uusan noo digin ma jiro aan u noqonno muxuu ahaa nabigeena sallallahu alayhi muxuu suubiyay muxuu qabtay in Allah subhanahu wa ta'ala saddex iyo 10 sano ba wuxuu ku jira hanuunin dhalinyarada hanuunin baa la yiraahdaa inta qoriga qaadan intaydan caytamin inta dadka cirtale caydale waxa baan dulay intaydan dhihin bal bilaaba inaad bilowdaan oo aad dadka hanuunisaan u sheegtaan wadada meesha u socotaan aad ka tagtid inaad xoolo yeelatid maxaa jira haddii aad xoolo raadiso waxa raadinaysaa dadka xoolahooda lagu jeclaan maayo mana lagu raacayo meel lama gaaraysid waxaaga si uga tag taas waxaan qabaa aan aaminsanahay raggii ugu dooranaa oo ugu fiicnaa oo Soomaali soo maray xukunkeeda raggii wadadaas qaaday waay waxaan qabaa ayaga lagu daydo yaanan hadalka aan ku taaganin waxay ahayd inaan xasuusno wanaagii Jaal Maxamed Siyaad dhaqaalaha waa xoreeyay dhaqaalaha ninka hadda ma jiro dhaqaalaha waa xoreeyay Maxamed Siyaad Barre dhaqaalaha wuxuu ku socoliyay gacanta ummadda Soomaaliyeed wixii bunuug oo Talyaaniga jiray waxa xasuusanayna wixii hard currency oo ajaanib ay qaadanayeen hindi wixii la mid ahayd gacanta ummadda Soomaaliyeed bay soo noqotay saasa kolka aan xoolo ku yeelanay ma ahan beeraha waa la xojiyay markii la baxay hadda aan tagaynay mooskuna cirku marahayay liintan macaan la yiraahdana ma malayn karaysaan inta muxuu ahaa beerood oo liinta kaliya ahid hadda laga dhigtay shidaal asaaskuna dawladeed wax kala ma ahan waxa waaye dhaqaalaha oo dhisma dadka maskaxdooda lagu abuuro midnimo lagu umuro horu socod lagu abuuro waay intaasna diinteena fariis aan hadalka soo ganaanada iga raali ahaada waxaan jeclahay inaan dib isugu noqono khaasatan dadka aan cirada lahayn sidoo kale waxaa jira tabar baa reebaysa haddana waa dhutinaya
waxaan subi kara ma jirto laakiinse raadkii in la raaco intii wanaagsanayd waxaan subinaa dhinac kastaba ama xagga militariga ha noqoto ama xagga dhaqaalaha ha noqoto ama xagga go'aan qaadashada ha noqoto waxaan ku jeedaa baarlamaanka iyo wixii la mid ah halkii ahayd waa inaan u noqono waayo macnaha tala la wadaago oo la isla helo oo meel la isla marsiiyo maxamed siyaad barre ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u qaboojiyo ilaahay ummaddu hoggaamiyey farcooda ka farcooda inay u noqdaan inay tubtaas ay raacaan waa mahadsantihiin nabadii golaha sare kacaanka hoggaamiyihii siyaasaddii kacaanka aan u noqonno waxa weeye asaga iyo raggii hawsha la waday ummadda soomaaliyeed waxbay weydiiyeen waxay weydiiyeen waxaasaan idiin wadnaayo ma naga aqbasheen ummadda soomaaliyeed oo u jawaabtay haabay tiri guddoon marka in yar baan idinka horraysiinaa oo xoogaa hordhaca oo ka horraysay arrinta kacaanka intuusan kacaanku dhalan oo taliyaha ahaa waxyaalaha yacni muujinhaya dad in la kicin karo wax wakhtigaas ayadaa laga jiifo oo aan markaa la garowsan karin inay saana ahaadaan lana qaban karin fikraddeeda waan xasuustaa idiin sheegaya nin la odhan jiray saadiq oo batalyanka Kenya xukumay allah u naxariisto bamba ku qaraxday markii dambe ninkaas oo hayay Kenya dhismahana kulli waxa soo ka mas'uul ahaa oo isbitaalka xoogga ninka dhisay walaftiisu wuxuu u diray berrito waxaan rabaa mar hore balaanka amray laakiin waxaan rabaa inaad bilowdo habeennimo xerada afasiyoon oo xiran oo dhagaxa in la arko hadii waa misaal yar laakiin waxba ka bilaaban silig xun baa ku wareegsanaa araga iska gali jiray waa laga soo bixi jiray carruurta ka dusi jirtay berri habeenka subaxaas in lagu waabariisto meeshaasoo xiran aan la geli karin oo dhagax ka dhisan baan ka rabaa subaxii baa la soo toosay meesha waa wada dhisantay kulli meel laga gala ma leh waxay ahayd yani brooba ah inuu dadku wax samayn karo misaal bay u ahayd misaal yar baan taabanaya oo hal abuurka maalan hadda laga hadlayay maxaa siyaad nin ka qarsoonaa ma aha ummadda Soomaaliyeed hal abuurkiisa hoggaamintiisa soo jeedkiisa daacadnimadiisa wax qabadkiisa ma ahayn nin ka qarsoon caalamka Carbeed nin ka qarsoon ma ahayn ma ahayn nin Afrika ka qarsoon ma aha halkaan aad ku arki doontaa intuu maray inta madaxa is arkeen madax Afrika jirta oo nin oo halkaan isku arkeen ma jirto carabta sidoo kale Yurub intuu kala kulmay halkaan oo kale intaas waxay naadinta qiimaha Soomaaliyeed politically inuu u diyaariyo ground ama saldhig inuu u diyaariyo ummadda ayada inuu wax qabsanayso inay arkaan u soo jeedsadaan wax la qabsadaan jaamacadda carabta subaxaan galeynay habeenkan galeynay shirkeedu wuxuu yiri hadal kooban baan ka oranhayaa iyadana dheerayn ma hayo waxa weeye adduunka waa ama buur ahow ama buur ku tiirsano buur manhin anagu waa inaan buur ku tiirsanana marka waa inaan jaamacadda galnaa si aan u kaalmaysano isu kaalmaysano intuu siyaasad carabta ka hergeliyana ma aad malin kartid oo aaraab badan asoo ku biiriyay ay carab wax ku qabsatay afrikana iska badaa mabeki baa ayaan wax qoray wuxuu qoray mabeki waa taqaanaa South Africa ninka madaxda ahaa bacda Mandela Nelson Mandela sanad walbaba warqad ku qori jiray anu xafiisay sida markan hayeen waaba isku aadanayn oo warqad san walba waxaan ka diri jiray telex baan ka diri jiray soo deynta Mandela documentkeedu waa leeyahay sanad walba loo qori jiray haye mabeki wuxuu yiri waxa la yaab lahaa dadka saarad arkaysaan in masraxooda ay ku xuseen Soomaaliya waxa ay doonayso Afrika la doonayso intaasoo aragti ay ka bixiyeen wadooyin baa ku qoran dabxaysa Mozambique ay ka mid tahay
magaciisa ku qoran yahay ilaa hadda marka waxa weeye maxaan siyaad daacadnimadaas ka sokee meel wayba wax ku shumaa nin yiraaha dictator buu ahaa iyo kan buu ahaa kii wax qaban waaya dadnimada soo saari waaya dictator buu ahaa kanu ahaa waraye war haddaan iskuul dhiso oo jaamacad dhiso oo warshad dhiso oo waddo sameeyo oo waddo halkaan ilaa berbere aan taxo oo halkaan ilaa boosaas aan bixiyo oo dekadii sameeyo intaa ma dictatorada tuugana aan ka celiyo ilaa waa la dhisayaa intaas san la fadhiyo ma ogolay in la dhiso waa la dhisay waddadii baa la sameeyey dekadii baa la sameeyey ayuu la soo jeedaa ilaa hadda ay la soo jeedaa kii laftigiisa markii shalayna waa dhisi waay waa la dhisay marka waxa weeye infrastructure-ka inta dalka la qabtay khaasatan dhinaca communication ama waddooyinka waxaad soo rogi karta ma aha warshadayntu halkay gaareen waa la socotaan beeraha halka la gaarsiiyey waa la socotaan waxbarashada halka la gaarsiiyey waa la socotaa hal qisaan weeraha waxbarashada ka sheegaya cabdirasaaq abukar oo ahaa runtii hogaamiyaha weyn waxbarashada runtii ahaa raxmadii allah siiyo kulligood asaga maxamed siyaad iyo intii golaha ah oo hawshaa la hirgelisay oo geeriyootay allah raxmadda siiyo cabdirasaaq wuxuu ahaa halabuuraha ugu weyn oo xagga waxbarashada runtii waxbarashada ninka ugu halabuuraha ugu weyn buu ah kama nasan jirin maxaa siyaad kama orod yarayn ninkaasu waxa uu qaban jiray waa ninkii hadda abaaraha u shawatay diyaaradda aan fuulahay marba meelo dhacayso inta jeer aniga mar diyaarad buu nagu qaaday wuxuu na geeyey arbow hero war qadaha la dhisay may gurigaan saal sac ka balansana mubaarak baa nala ka dejiyey aniga asaga maxaa cali nuur ninka la yidhaha muxuu ahaa jaamac rabiile oo wasaaradda dalxiiska waxaa joogay gruub saasaanu ahay mubaarak baa haddana diyaaraddii naga qiiqtay qiiq ku kacay waa ka dhacan meeshii baan ka lugaynay 14 kilomitir baan ka soo lugaynay wiilka ilaa Shukwantees baan ku nimid baabuur sitee ah oo wata qasab iyo yaanyo wata oo dad ku jiraan yaan soo fuunay laba shil la baxan wallahi wax dhacayo maxaa saalax weydiye maxaa saalax jaranka oo dhiisi ka afgooye weydiye baar Ismaaciil baan na dhignay waana dhig nin waxa qasbashi lawa gaajisnay xalay saaka wax noogu dambeysay gurigii waana 12 saac hal marayo qasabkii waxaan markaas nood idaaya qafs markaas amnin yiri war yaanyadayda cuna yaanyadii baa cunay waa soo gaanay afgooyaan ka degnay baar Ismaaciil baa cashana siiyey saalax baa noo baawurna siiyey xamar baa noo dhaadhiciyay marka waxaan ka wadaa ninkaas subaxii jumcada ahayd oo shir aan ka baxnay labay golaas waqti lagu soo jeedi jiray annagoo indhaheennii qabraba uu yiri hangool inta soo qaatay cabdirasaaq baan arrinta mawduuca uga socday soo gashay hangool soo watay diyaarad soo baxda baxaynaa ilaa xafiiska sidan ayaan waa qasabe war hadda waa dalana ma bari ka dhigano maya waa la soconaya maxay siyaad kama tilaabayaan ninkaas allah u naxariisto kama tilaabayaan Soomaaligana ragii u sababaha qoridiisa ku dhabar jabay ku hawlo badan ka galay baa that we understand that what we are doing is giving back, that when we go to school, that we know it's a fight between yourself and the teacher. It's not about humor, it's not about jokes, it's not about meeting your mates. It's a war. And Charles Darwin was talking about the survival of the fittest. Times have changed. This is the survival of the smartest. So yeah. waxaan ahay dhalintii kacaanka maxamed siyaad oo la dhashay maxaa la dhahaa waxaan ka mid ahay dadka wax qabadkiisa la bilowday lana dhigi karo la dhameystay 20 sano oo wadanka ka tilnaa waxaan dadkii Brima ilaa iyo Fonfor hadana maxaa la dhahaa ay shaqo ku helay wadanka waxyaabihii oo maxaa la dhahaa oo kacaanka qabtay ama basiyaad anaga basiyaad ayaan dhigi jirnay basiyaad oo qabtay waxaa ka mid ahaa oo aniga aan xasuusto iyo dadkii lodkayga ahaa oo dadka aan dhigi karo Soomaali dadka ugu nasiibka badan inay yihiin dadkii maxaa la dhahaa ilmihii kacaanka dhashay wax ku soo bartay maxaa la dhahaa isha ku soo koray sababtoo ay maanta marka aragtiin maxaa la dhahaa kuwii naga horeeyay kulay dadka iga horeeyay ka hadli kara laakiin lodkayga haddaan ka hadlo iyo maanta dadka jira waxa waa dadka ugu wadanisan weeyaan hadda dadka lodkayaga ah sababta ay tahay
waxaa wadanka xaquuqday ku lahaayeen way ka heleen waxay heleen waxbarasho free ah waxay heleen caafimaad free ah waxay heleen maxay ahayd security ama maxaa la dhahaa isheeg nabad ayay ku noolaayeen maxaa la dhahaa marka sidaa daraadeed aad ayay uga nasiib badan yihiin hadda aragtid maxaa la dhahaa ilmaha hadda jira ama 20 sano la soo dhaafay jira wax wadaninimo ma kasaayaan haddaad uga sheekaysid aad tiraahdid wadankeena saan ahaan jira ma ku aaminayaan ma aaminsana wax la dhaho maxaa la dhahaa government ama wax isku xiran iyo system la maro ma fahansana waxay kaliya oo fahansan yihiin wixii cidooda u soo diraan waxay maanta qadaan waxay maanta cunaan waxbarasho ay helaan waxbarasho ay ka go'do iyo maxaa la dhahaa by chance wax ay si ku helaan laakiin wax system ah oo maxaa la dhahaa intaad aad birimo ka bilowdo aad sugunto ku xijiso oo maxaa la dhahaa dawladda ay leedahay ma aha dad ay arkeen runtii lama soo koobi karo waxaan xasuustaa markii oo maxaa la dhahaa aan bilaabeynay birimada waxa jiray xanaanooyin ka horeeyay iskuulka intaada bilaabin ilmaha loogu talagalay inuu barto sida qalinka loo qabsaday iyo waxaas xaafadda Casablanca la dhahaa ayaa deganeen ku taalay waxyaabihiina la bari jiray heesahana la bari jiray maxaa la dhahaa maxay ahayd xildhibaan caawa wuxuu raadinaya qof buraanbura laakiin buraanbur waxaana la bari jiray asana la bari jiray waxaa jiray ahaa afar jir iskool dhigto af Soomaali la baro awal lama aqoon jirin aabaheen siyaad iyo ilaahaba mahadaas leh heesiina la bari jiro taasna waxay ku xusaynaysaa macnaha ilmihii naga horeeyay inayna afkooda Soomaaliga aysan u helin maxaa la dhahaa inay wax ku bartaan oo ahayn ilmihii macnaha generationadii ugu horeeyay ee Soomaali wax ku barto maxaa la dhahaa 90ga ayaan wadan ka soo tagay Denmark wadan la dhaho ayaan imaaday xilligaas asaga ah ajnabi badan ayaa maxaa la dhahaa wadanka joogay maxaa la dhahaa 5 sano ka bacdi Soomaalida markay ku soo bateen waxay Deenishku markay arkeen ilmihii qaxootiga ahaa ee soo qaxay ee wadankii yimid ee wax baran waay waxay ogaadeen in ilmaha qaxootiga ah ama ilmaha markaas 3 jir 4 jir ku yimid ilaa af Soomaaligoodii loo qoro aysan baran karin af kale sida daraadeed ay ugu adagtahay waxbarashada taasna waxa ka cadeynaysa 20 sano ka bacdi inay ogaadeen wadamada hormaray maxamed siyaadna uu ogaa maalinku xukuumaddiisa uu qabtay uu yiri Soomaaliga waxa lagu qoro taa waxay idin cadeynaysaa in uu fahansanaa micnaha ay leedahay afka hooyo dadkii ugu horeeyay ayaa lahaa maanta waxa kaliya oo Soomaali u haray oo maxamed siyaad ka haray la dhigi karo waa afkii uu qoray maxaa la dhahaa aaran ayaa wuxuu weydiiyay su'aal ah haday maxaa loo qori waay aaran maadaama aan ku yiri dadkii waxaan ahaa nasiibka u lahaa juqraafiga Soomaaliya ayaa la igu dhigi jiray gobol walba waxa ka soo baxa goortii laaba maxaa la dhahaa ii sheeg waxa uu caanka ku yahay waxaan nasiib u yeeshay in la ii sheego gobol kasta iyo xilligii abaabulay iyo wuxuu qani ku yahay wax kasta oo Soomaali taariikhda juqraafiga maxaa la dhahaa wana loo kala qaybin jiray wax walba oo wadankeena wana loo qori jiray taasna hadii la raadiyo waa la heli karaa waxa kale oo maxaa la dhahaa aan rabaa inaan macnaha maadaama haween aan ahay maxay ahayd maxamed siyaad haweenka Soomaaliyeed meesha uu gaarsiiyay iyo maxay ahayd ii sheeg meesha uu ka soo qaaday iyo sida uu aaminsanaa inay yihiin dad muhiim ah maxay ahayd degmooyinku u furay laamahu u furay hawsha maxaa la dhahaa service-ka dhan oo hooyooyinka oo wadanka iyaga hayay maantana maxaa la dhahaa ii sheeg 20 sano ka bacdi burburka aha waxay maanta dawladda maxay ahayd cusub ay aqoonsatay in 30% gabdhaha la siiyo taas waxaan aaminsanahay inay ku waxaysan tahay dhibaatadii ama meeshii maxamed siyaad uu ka soo qaaday uu dumarka maxay ahayd Soomaaliyeed uu gaarsiiyay heerka uu gaarsiiyay inaan maanta ku helnay inaan 30% aan dawladda aan ka gali karno aan ku helnay waa mahadsantihiin ee ahayd mid baa ku imanaya Soomaali ah markaasuu ku leeyahay buugga aad qortay Ingiriisi wuxuu u dan leeyahay waa garan karaa maxaa jira ilaahay hadduu caqliga saaxiib kaala dhigo ujeedada dadka waa fahmi kartaa wuxuu ku leeyahay buugga aad qortay Ingiriisi ma ku qoran yahay yacni inuu kaaga tuu diidayaa moogta balkeen hadda aan dhibka aan soo akhriye caawa buugga halkan yaalla Ingiriisi ayuu ku qoran yahay waxaad joogtaan magaaladii London waa idin la kaftamaya haddaad hiilla naga rabtaan qosolkuba hiilla waa galaaye buugga yaan idinkoo dariiqyada la marmaraya xaafadihiina la jooga yaan la idinka waayin haddaad hiilladeedihiin dad Soomaaliyeed salaamu calaykum waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed ibraahim shire qoraad dhalin yar anigu marka ay hadba laamaha warbaahinta ee shirarka aan ka qayb galo idinka ka heli doona Google-ka iyo meelahaas daad ka raadisaan young Somali author bay ii qoraan caawanin iga yarbax saxad soo galay ahlan wa sahlan isagay joogtaa maxamed ibraahim shire
جال مهد عبد الله جامع جال عمر عبد الله الشرع مركل بعد مدير مربوين جاليال لما مرت شرفت كسوق يبقى حفلتان بندقة وحن نسوق قدبينيا مهد بلارن سعد وهرتين وقت نقالقة كسوق يبقى حفلتان وحرب إن هذه مريو مهما وكمل كوي عاد استعمال شري الله نحرست مدحوينه أمد الصوماليات جال محمد سياد بري كاسو هذا ير يهول بدن تاسو يقدر بحذي أنت عندك يسأل لها والي يري أقلك أقاطة صحة وحربا مهما كلو ين استعمال كذا وكبرنا جالسيات أيه هاد بيستعبد هذا يلود لك تاسنا أيون يقول لسيئنا لما ما انتهاي إن تاريخ أنت قف أجنبي من أخر لها إن أنا قرنو من المروين جاليال سواد أغنى هاي أن هالكن سكون منت وبندق بوك كان كور على نحرس تاريخ المدحويني أمد الصومالية جال محمد سياد بري بوك أنا فلي إنه يهاي بوك أوري لو قري تاريخ يسا وحن لصعنا إن جال محمد سياد بري مركز لقى ربو ومركز لقى حلي تاريخ يسا تاريخ كلية الصومالي عصب كالي مقله ساس أوجي نقف كسر لنا تاريخ الصوماليات ما ينكر الكرورات كلية محمد سياد هذا إن يدب يقول نقطة صباح يقول كل في قرية بوغان يسأرورنتي أراحل تاريخ محمد سياد إيو دولتي كعنكا تنكواد بحياة مركان أركي أون داوضي مقالو موجين فرحد كم وقت الشعب الصوماليات تاسون لهن دقاو قاتشو أم يدره إيو التفرارق كبعني آخرية بوغاق إي مقالة كهلا يوحقبت كي دولتي ومدحة كهلا جال محمد سياد بره يولي بمشروع قايها له أو قالقة إسكا واحد قبصو أنا كم يعدل نادي الصوماليات قرباء كبر بارتو أهلين فرصة دي هلين والدين تاني وهاد وناك الدول النمو يو وحين سري وحين مهم تاي إن أروي تاريخ الهجامية أمداس طلبات وحياة بعد قفر حيي وحاوي مركي أنا كي تالوين كي هالجميعشي الصوماليات وأصلاً وهاد إن تدك الصوماليات كفانا تاريخ ذا روحانتي برنامج إسكا واحد قبصو وحياة تسالونك وينا وده الشخصي أمد الصوماليات هادين اللون تسوق ودهم كيدي عيال قد يسمى مشروع عاز وحاجة القوي وتري أبان عبد محمد حمونا إنه أنت الله نحرسته كاسو كهالي برنامج كاس وده شخصي أمد الصومالي حيري إلا جولي جواي إلا يجد بري هاك زين هاي كوتشوكتو وحي جنس أو ذاقنو جبودي ضد باكيميت هذا الناس معنا أفنجريسك اللغة أفنجريسك وحاواي people came as far away as Julian and Jawai Islands as far away as the eastern seaboard and all the way from where Zaire is people came from Djibouti and wherever the Somalis found مثل لو يجي بس وحاكم إلى أول جامعات أردي إلى هالجامعات أو العقلان هاد وحاكم أولي رنجلين تبرشة الهيس كيسو حابر أم برو كاسو دلين تيارات معان وهد ويلك أميجا عبنا لو أركن مدير مربوين جاليال وحارب إن عاو هالكان قاعد دايما دام بوكا كقرين هاللو قد أفنجريسكا إن عوض الإن للترجمة إن شاء الله كاسو دوان صوت بحندونش إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم حفلة وحفلة آديات وناكسري ما شاء الله وحين هاد حفلة وقفضوا ضيد وسهلنيد إلا أبابلو waxay ahayd xaflad ayadu laftigeeda is abaabushay waxay ahayd xaflad maaragtay runtii dadkii hore iyo dadkii dambe oo generationkii dambe ahaa oo jiilkii dambe ahaa ee Soomaaliyeed ay maaragtay isku dayeen inay maaragtay ay midayso taariikhdooduna ay u timaado hal mid noqoto ma sha Allah baan leenahay waan soo dhaweynaynaa hambalyo inay maaragtay dadku taariikhdoodu ay iswaafaqsanaato oo israacsan tahay waa wax loo baahan yahay
waana taageeraynaa maasha allah wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii xafladda ayaa waxa uu qoraagu ballan qaaday in buuggan oo haatan lagu qoray luqadda ingiliishka loo bedeli doono luqadda soomaaliga si ay ugu fududaato dadka soomaaliyeed fu'aad xaaji cabdiweli royal t v bartamaha magaalada london